dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay dhulatus ballaaran oo military ku soo bandhigtay magaalada Doolow ee gobolka Gedo ka gadaal markii ciidamada Tirabella maalmihii ugu dambeeyay ay halkaasi ku daabuleysay. Talabadan ayaa timid ka gadaal markii ciidamada ka socda dowladda waddankaasi Itoobiya ay dhawaan u qabteen kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan xero UK in 3 cisho gudahood ay uga baxaan gudaha magaalada Baladxaaw. xoga iyo macluumaad dhameystiran oo ku qotoma guud ahaanba dhulatuskaasi iyo waxa uu ka dhigan yahay aanu idin soo gudbin doonaa. Soo dhawaada wada haday tahay markaaga kugu horeysay aad soo booqato halkan subscribe noo saar noon like garee muuqaalkan waad ku maasan tahay soo booqashadaada. Wararka laga helayo gobolka Gedo waxa ay ku waramayaan in dhulatuskii ugu ballaarnaa ay halkaasi ku soo bandhigeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee hogaaminayo taliyaha nabad sugidda Jubbaland ay u magacaawday dowladda dhexe ee Soomaaliya Cabdirashiid Jana. waxaa la tilmaamayaa tir ahaan ciidamadaasi inay gaarayaan ilaa iyo 3,000 oo askari kuwaasi oo ku hubeysan dabaabaadka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan. wararku waxa ay ku waramayaan in ujeedka bandhigan uu yahay in lagu muujiyo awoodda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan xuduudda hore ee Baladxaaw. waxaana la tilmaamayaa in lagu cabsi gelinayo dowladaha deriska ee Itoobiya iyo Kenya kuwaasi oo siyaabooyin kala duwan uga gafayay qarannimada iyo madax-bannaanida dhuleed ee Soomaaliya. waxaa la tilmaamayaa intaas mid la mid ah ay sameynayaan dhinacyada ka soo horjeeda dowladda. waxaana la tilmaamayaa in abaabulkaasi la mid ah laga dareemayo magaalada Doolow ee gobolka Gedo halkaasi uu ku sugan yahay Maxamuud Sayid Aadan oo ah hogaamiye ku-xigeenka maamulka Jubbaland. waxaa la tilmaamayaa ujeedka halkaasi uu joogo inay tahay abaabul kama dambeys ah uu doonayo in maamulka Jubbaland ay ku qabsadaan magaalada Baladxaaw halka deganaashiyo xoogan laga dareemayo magaalooyinka dhawaan dagaaladu ay ka dhaceen. waxaa la tilmaamayaa in qorshuhu hadda uu yahay weji cusub oo dagaal ah oo u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland oo garab ka helaya dowladaha deriska ee Kenya iyo Itoobiya ka gadaal shir dhawaan ka dhacay deegaanka Suufta oo hoostaga degmada Doolow ee gobolka Liibaan ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. waxaa lagu soo waramayaa in Maxamuud Sayid Aadan abaabulkiisa guud ahaanba uu ka tarjumayo qorshahan uu yahay midkii ugu dambeeyay oo ay ku wajahayaan dagaal kama dambeys ah oo lagu qabanayo deegaanadii dhawaan lagala wareego ay ku jirto magaalada Baladxaaw. maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ay ciidamada Jubbaland ka wadeen xadbeeneedka ay wadaagaan labada dowladood ee aagga degmada Mandheera. waxaana la tilmaamayaa in ciidamada abaabulan ee Jubbaland ee halkaasi ku sugan ay u soo ruqaansadeen dhanka iyo magaalada Baladxaaw, balse xadka waxaa ku sugan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo siyaabooyin kala duwan u ilaalinaya xadbeeneedka isla markaana guud ahaanba aan wax dhaqdhaqaaqa halkaasi ka dhici karin ka gadaal markii la sheegay inay ka warheleen in ciidamada Jubbaland ay halkaasi isku soo abaabulayaan. dhawaan golaha wasiirada xukuumadda Jubbaland waxa ay war-saxaafadeed ka soo saareen dagaalka ka soconaya gobolka Gedo waxayna sheegeen in guud ahaanba ay soo afmeeri doonaan qulqulatooyinka siyaasadeed ee ka jira gudaha gobolkaasi Gedo. waxaana ay hoosta ka xariiqeen inay qaadi doonaan guud ahaanba weeraro cagmaraysa oo ay ka sameynayaan qaybo ka mid ah gobolkaasi Gedo sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay Jubbaland oo ay soo saareen golaha wasiirada maamulkaasi. waxay u muuqanaysaa isu biratumasho xoogan inay ka jirto gobolkaasi isla markaana dhinacyadu dhanka kale waxa uu uga goodinayaa inuu qaadi doono dagaal kama dambeys ah oo dhinaca kale uu ku weerarayo. dowladdu weli waxa ay ciidamo ku daabulaysaa gobolka Gedo waxayna xoojinaysaa awoodeeda military si ay uga hortagto falagelinta shisheeye ee xuduud beeneedyada ka socda iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ciidan ee iska soo horjeeda ee abaabulan ee halkaasi laga abaabulayo. waxaase la tilmaamayaa in guud ahaanba dowladdu ay guda galayso qorshaha guud ee markaasi lagu dhisayo maamulka Jubbaland cusubkaasi oo laga hirgelinayo gudaha magaalada Garbaharre ee xarunta gobolkaasi Gedo. waxaase la tilmaamayaa in la isku mari laayahay isla markaana villa Soomaaliya iyadoo isku khilaaftay qaabka loo wajahayo dhismaha guud ee maamul goboleedka cusub ee laga yegleelayo gobolka Gedo. waxaa la tilmaamayaa in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu tallaabadaasi ay ku kala boodeen isla markaana qaar ka mid ah xildhibaanada saaxiibada la madaxweynaha jamhuuriyaddu ay hadda abaabulayaan muushinno xilka looga ceyrinayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre. qorshaha la tilmaamayo in madaxweynuhu soo jeediyay isla markaana ra'iisul wasaaruhu ka biyadiiday waxaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu doonayo shakhsi ka socda gobolka Gedo in laga dhigo madaxweynaha maamulka Jubbaland cusub ee laga dhisayo Garbaharre
halka sidoo kale ra-iisul wasaarahuna uu ka biyo diidan yahay qorshahaasi islamarkaana uu doonayo nin ku hayba Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe in laga dhigo madaxweynaha Jubbaland cusub ee la dhisayo. waxaa la tilmaamayaa tallaabadaasi in la isku mari laayahay villa Soomaaliyana uu buuq hareeyay. qaar ka mid ah xildhibaanada saaxiibada dhow la ah madaxweynaha ayaa la tilmaamayaa in mushino ay ka abaabulayaan gudaha magaalada Nairobi. mushinkaasi ayaa qorshihiisu yahay guud ahaanba in talada looga ceyriyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Xamza Cabdi Barre, kaasi oo guud ahaanba ay isku hayaan saaxada gobolka Gedo maalmihii ugu dambeeyayna ay si weyn isu mari waayeen ka gadaal markii kiiska gobolkaasi loo wareejiyay taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad, kaasi oo dhawaan sheegay in guud ahaanba dalka la keenayo ciidamo masaari ah kuwaasi oo si awooda ku tagayo gobolkaasi si loogu jebiyo ciidamada Kenyaanka iyo kuwa Itoobiyaanka ee xadka ku sugan. waxaase la tilmaamayaa in xiisadu marba markii kasii dambeysa ay cirka sii galayso, wejiyo cusub ayaana yeelanaysaa xiisada ka aloosan gobolka Gedo. siyaabooyin kala duwan ayaana maalmihii ugu dambeeyay dhinacyadu ay isu mari laayihiin. lama sooga halka ay saldhigan doonto xiisada gobolkaasi Gedo.